السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي soo dhawaada. Maanta waxaynu qaadan doonaa cashar cusub oo ku saabsan erayo cusub oo waliba erayaha advanced ah inagoo oo ka duuleyna inagoo oo marka hore heerkan hadduu marayay intermediate waxaan baran doonaa marka erayo cusub oo la xidhiidha advanced si ay luqadeenu u kobocdo. marka muhiimaddu waxa weeye halkan in kula wadaago kelimada cusub oo kuwaas oo ah erayo advanced ah inta badan dadka luqadda ilaa xad meel wanaagsan ay u marayso ay ku hadlaan ama inta badan lagu arko hadalladooda ayaan ku wada qaadan doonaa saaxiibayaal soo dhawaada. marka ereyga kooda ugu horreeya waxa weeye very interesting very interesting waa kelmad basic ah oo normal ah markaan doonayno marka haddaba si advanced ah inaan maaragtay dib u qaadano waxa weeye fascinating ama fascinating mid ka doonto dhe waa lahjadu ku kala duwan yihiin. marka fascinating weeye very interesting baan leenahay. marka very interesting macnaheedu waa maxay ama maxay la mid tahay as advanced ahaan waxa weeye fascinating I have a fascinating history waxaan hayaa sheeko xiiso leh halkaad ka odhan lahayd I have a very interesting story halkaad ka odhan lahayd waxaad odhanaysaa marka I have a fascinating story waxaan hayaa sheeko xiiso leh. marka waa tan bedelkeedu weeye very interesting waxaad ku bedelaysaa marka maxay fascinating. marka badanaa dadkeenu waxay isticmaalaan ama qofku wuxuu luqadda biligu ku yahay beginner ama intermediate waxay isticmaalaan kelmadda very interesting, very small, very high, very big waxaasuu isticmaalaa qofka. marka taa haddaba si aad u bedesho ood mid kale u soo jiidasho leh ugu bedesho marka waana isticmaasho erayadan kamiisaan ku haddaan aan dhigan doono oo kale saata very interesting markaad doonaysana tiraahdo waxaad odhan kartaa fascinating way. tina labaad very intelligent markaad intelligent waa maxay yani waxa weeye soomaali ahaan waxa weeye maskax badan qof maskax badan qof xariifa ayaa loo yaqaana maxay very intelligent. brilliant markaa bedelkeeda brilliant asaar faanso dhahaan brilliant tusaale my professor is a brilliant yani professorkaygu waa mid xariifa oo maskax badan oo xariifa. marka halkaad ka odhan lahayd my professor is very intelligent halkaad ka odhan lahayd waxaad ku bedelaysaa marka kelmadda brilliant baad ku bedelaysaa marka brilliant marka inaad saa ii fahmaysaa maa filayaa very intelligent waa maxay brilliant way. very scared waa cabsi badan marka very scared waxaad ku bedelaysaa petrified or terrified labadan kalmadood midkii aad doontaad markaa ku bedelaysaa iyaguna maxay cabsi badan qofku markay cabsi badan xoog ay soo wajahdo qof wuxuu dhahdaa I petrified from something yani waxaad ka cabsanaysaa markaad sheegaysa I petrified saasoo kale. marka very scared waa maxay waa cabsasho badan. marka tusaale ahaan some people are petrified or terrified of snakes dad qaar baa ka cabsada maska maxay maska ka cabsada. marka labada mid ka doontaad isticmaalaysaa halkaad ka odhan lahayd marka some people are very scared of snakes halkaad ka odhan lahayd bedelkeedii maxaad keentay petrified or terrified labada mid ka doontaad markaa isticmaalaysa ereyadaas ayaad markaa keentay bedelkooda. marka maxay waa kelmad markaa advanced ah oo lagu bedelan karo booskaad ku buuxsan karto very scared cabsi badan way. very open waxa weeye transparent oo af Soomaali ah hufnaan ama wanaagsanaan qof open ah yani wanaagsan soo dhaweyn leh baa la yaqaanaa very open person qof yani soo dhaweyn leh. marka very open markaad leedahay waxaad ku bedeltaa marka transparent person marka waa qof hufnaan wanaagsan soo dhaweyn leh. tusaale thank you for your being transparent with me waad ku mahadsan tahay hufnaantaadii yani wanaagsanaantaadii waad ku mahadsan tahay halkaad ka odhan lahayd thank you for your being very open with me yani saad igu furan tahay igu hufan tahay igu wanaagsan tahay waad ku mahadsan tahay waxaad ku bedelaysaa marka very open marka maxaad ku bedelaysaa transparent
transparent marka maxay very open marka maxaa la micnaa transparent way very big waxaan isticmaalaa badan dadkeen maxay isticmaalaa very big aad baa loo isticmaalaa marka maxaad ku bedelanaysaa gigantic ma waxa loo isticmaalaa gigantic waa loo isticmaalaa kelmadda saa loo akhriyo maxay gigantic very big waa maxay gigantic tusaale the storm on the ocean created gigantic waves yani duufaanta baddu waxay abuurtay gigantic waves hirar waaweyn ayaa abuurtay the storm on the ocean created gigantic waves hirar waaweyn ayaa abuurtay marka waxaan ku bedelaynaa marka gigantic waxaan ku bedelaynaa marka very big kala qoran lahayd very big marka waa kelmad basic weeye basic marka si luqadaada ay u kobcdo luqadaada u kordhiso waa inaad erayadan barato sida marka gigantic oo kale gigantic way very rich maxay well off ama wealth of qani ah of wax haysta waxaa yaqaanaa well off ama wealth this is a waxaa odhan karaa well off city waa magaalo qani ah this is a well off city waa magaalo qani ah halkaad waxaad ku bedelaysaa markaa maxay this is a very rich city halkaad ku oran lahayd this is a very rich city halkaad ku oran lahayd waxaad ku bedelaysaa markaa well off ama wealth baad ku bedelaysaa midkaad doonto marka this is a well off city waa magaalo qani ah way very crowded waa buuq badan very crowded aad u buuq badan very crowded marka crowded baad isticmaalaysaa oo ama jam packed labada mid ka doonta markaa isticmaalto labadan eri midka markaa aad jeclaato ayaad isticmaalaysaa waa maxay crowded or jam packed mid ka doonta markaa isticmaalaysaa he doesn't like crowded areas meelaha buuqa ma jecla he doesn't like crowded areas ma jeclo meelaha buuqa he doesn't like the crowded areas meelaha buuqa ma jecla very crowded baad ku bedelaysaa marka way very honest qof daacad ah si run ah daacada qofka wuxuu ugu sheegay maxay very honest straightforward waxaa loo dhahay straightforward waa maxay waayadna waa daacadnimo marka yar waa fahansan he gave straightforward response wuxuu bixiyey jawaabo daacad ah he gave straightforward response wuxuu bixiyey jawaabo daacad ah marka waa halkaad ka odhan lahayd he gave very honest responses waxaad ku bedelaysaa maxay straightforward baad ku bedelaysaa very angry qof aad u cadhaysan aad u cadhoonaya very angry qof aad u cadhaysan ama aad u cadhoonaya maxaa la dhahaa indignant the indignant customer complained about the bad advice yani qofka customerka aadka u cadhaysani waxa uu ku cambaareynaya ama wuxuu ka cabanayaa about the bad advice talada xun the indignant customer complained about the bad advice talada xun ayuu ka cabanayaa marka waa halkii aad ku oran lahayd very angry